horreyntii waxoogaa si kaftan ahaan yani butana waan ka soo jeedaa liwayana waan ka soo jeedaa bal horta xuseen shakhsi ahaan yuu yahay yani bal sooyaalkaaga nololeed xuseen ibraahim xasan ali dhaha si fiican magaalada liboya yaan primary class 1 ilaa class 8 ka aan ka soo dhameeyay deegaanka meeshaas aan ku soo koray laakiin asal ahaan waxaan ka soo jeedaa Butte Wajir North qaybta la dhaho marka in a summary meeshaas aan ka socdaa primary markaan soo dhameeyay waxaan dugsiga secondary la dhaho aan aaday Alliance High School kadib Nairobi sanadkeeda aaday 1989 to 1992 okay marka dadka isku age baan ay soo gabadheena laakiin runtii ma ogtahay xiliyahaas aniga haddaan xasuusto waxay ahayd guul weyn bay ahaan jirtay yani qofkan Alliance High School ayuu dhigtaa Alliance High School okay haye see what Alliance High School markii oo class ka lixaad aan ahaa okay macallimad oo ka imaatay Mount Kenya Kiambuda si fiican ya macallin ay ahayd marka waxaa la isweydiin jiray adiga markaad class 8 aad gaartid iskuulkeed aadi haye marka si fiican uma kala garanaynin laakiin waxaan raadiyaha ka maqli jiray bariga television iyo waxyaalaha ma jirin si fiican so waxaan maqli jiray Alliance High School numberka koowaad Alliance High School marka waxaan ku yiri Alliance yan aadaya okay waxay tiri iskuulkaas haye iskuul oo raqiis lagu taga ma aha ciyaar ma aha sad ku aadi okay marka meeshaas aan maaragtay horta aan ka bilaabay waxa oo aad doonayso ilaahayna waa kula garab qabana galaaska 8aad markaan dhameeyay waxaa soo baxday in aan top 5 ka ku jiray North Eastern marka waxaan helay Alliance High School Alliance High School markii aan tagay waxa meeshaas aan ugu tagay waxaan islahaa mugtay wax baad taqaanaa waxaan ugu tagay caruur oo maaragtay oo numberka koowaad labaad ilaa 20aad oo qaadan jireen ilaa 30 marmar waxaan qaadan jiray numberka 35aad marka meeshaas waxa iskugu imaaday caruur wax maaragtay tayado la soo baray oo heer sare ah Liboy primaryna waxa way tuulo yar oo maaragtay oo si fiican markaan ka soo baxay Alliance High School waxaan Nairobi University aan xogo dhigtay waa ka baxay hamigaygu wuxuu ahaa inaan lawyer noqdo marka ingiriiskan aaday law baan soo bartay ingiriiskii baan maaragtay ka soo shaqeeyay Safeway meesha igu baxday oo meeshaas waa soo noqday 12 December waxaan ku soo noqday wadanka waxaan arkay markaan xagga joogay in wadankan kelima ah Afrika dhan ay u baahan tahay in wacyigelin dhanka leadershipka wax dadka loogu sheego because dadka waxay u yaqaanaan leaderga qofka la soo doortay oo maaragtay oo baabuur wato dawladda leedahay bodyguard waxyaalahaas loo yaqaanaa but leadership way ka duwan tahay qofka hoggaanka ummadda u hayo xil aad u weyn baa saaran marka waxyaalahaas aan dhaxgalay oo maaragtay baaritaan ku sameeyay waxbarashadeedii meeshaas aan ka sii waday North Eastern markaan fiirino meeshaas aan ka imaaday markaan aan leader aan sheegayno qofkan waa hogaamiye markaan leenahay waxaan ku tilmaamnaa qof oo influence un maaragtay qofka markuu imaado qofkii oo la dagaalsanaa iyo qofkii heshiiska la ahaaba wax ka doonayaan badrun ahaantii leaderga markii la tafsiiro waa qof u damqanaya ummadda horta xuseen aan ka dhaxgalo gobolka Soomaaliyeed waqooyi bari Kenya waxaad moodaa markii uu shakhsiga Soomaali yahay ama councilor ha ahaado ama MCA ha ahaado sida hadirtan loo yaqaano ama MP ha ahaado waxaa la dhahaa maaragtay war ninkii madaxda ahaa soo galay kowde ummadaha kale oo Kenyaanka ah oo u shaqo tago xaggaasi ama DO ha noqdo ama DC ha noqdo waxaad maqlaysaa waraha ninkii mukubihi baa imaaday marka waa kelmadaha maaragtay inta badan la adeegsado laakiin
maadaama maaragtay mawduuceena caawa uu noqon doono mid salka ku hayo yuu yahay qofka hoggaanka ah maxaa lagu tilmaami karaa qofka hoggaanka ah ama hoggaanka hayo laakiin si maaragtay shacabkana daawanayo si loo jilciyo ayaa waxaan rabaa hab maaragtay qorshaysan ama professional ah inaad noo kala saartid goormaa qof lagu tilmaami karaa alaylehe ninkan waa nin hogaamiye ah this guy is a leader ninkan waa nin siyaasi ah ninkan waa nin maaragtay activist ah bal inoo kala qaad inoo kala saar aad baa u mahadsantahay su'aal very important waa su'aashaas qofka hogaamiye markii la leeyahay waa qof oo danta ummadda ka shaqeeyo number 1 qofka siyaasiga ah waa qof loo dirsado in uu qayb soo qaado meel wax lagu qaybsanayo intii la dhaho warniyaho meeshaas noo tag qaybteeni noo keen ninkaasaa nin siyaasi la dhahaa ninkaas waa nin bagayn samayn karo intaas qaado waa gurgurtama intaas qaado maya intaanan qaadana ninka hogaamiyaha ah waxyaalahaas inuu ku dhaqaaqa ma aha ummaddan kale soomaalida ka duwan waxay leeyihiin siyaasiyay leeyihiin waxay leeyihiin oday dhaqameed oo traditionals oo adag haysto waxay sameeyaan calaamad oon laga gudbi karin hadda maalan ka soo qaad sanadka markii laysku haystay dhaqaalaha loo qaybinayo countiyaasha waxaan ku baxsanay sanataha Gaarisa Yusuf Xaaji kii Wajeer Kabreta kii Mandera Muumad iyo Farxiya iyo gabar kale oo Gaarisa nominated kuwaas ola sameeyeen oona garab ka heleen sanatayaal kale oo ayagoo countiyaashay ka imaadaan wax loogu daraya marka waxay tusinaysaa meeshaas in xogahoo ay dadaaleen haddaad fiirisid sanatayaasha xiriirka u dhaxeeya gabanayaashooda kuwan Wajeer Gaarisa Mandera xiriir fiican ma laha dadkii dad isku duuban ma aha waxaa keenaya odayaashan oo hoggaanka hayo yaa la rabaa inay isu keenaan dadkan waa dad la dirsado dad hogaamiye maaha waa dad siyaasi ah dadka odayaashan la rabaa inay dadkan isu keenaan markii waa la isku dhacaa siyaasadda mugta waxay leedahay xarbiya ay leedahay waa la isku dhacaa in dad oo isu keeno oo isku xiro loo baahan yahay ma hayna dadkaas waxaan haynaa odayaal oo beelbeel ka socdo ooba isfahansaneen meeshay hawsha u socoto maba fahansana odayaashan nin kasta wuxuu ku jiraa qolkiisu wuxuu leeyahay aniga meeshaanaan haystaa waxaa la rabaa in laga gudbo taas oo Soomaali nin oday ah oo u hadlo arrimahan siyaasadda aan ahayn dhaqanka aan u baahannahay waxaan u baahanahay markii oo odaygaas uu soo baxo siyaasadana dhankeeda in la isku xiro maalan Nyanza waxay leedahay party laakiin partygaas wuxuu soo saameeyaa ilaa North Eastern uu soo gaaraa Jubilee waa party oo Mount Kenya hadda haysato laakiin waxaa ka soo galaan xildhibaano sanatayaal gabanayaal oo Soomaali ah ka soo galaan markii miiska la tago adiga waxa lagu leeyahay passenger baa tahay rakaab iska saaran doontan adiga ma lihid si fiican wixii lagu garto qaado laakiin haddaan party leenahay oo North Eastern ilaa Isiolo ilaa Marsabit isku xiraayo party waxaan leenahay awood oon ku gorgortami karno qaybta aan soo qaadanayn marka oday ma hayno party ma hayno baabuur aan ku safarno ma hayno waxaan haynaa dad kala daadsan oo siyaasi ah oo kala socdo ayagaba isku luuqad aan ahayn marka u kaadi Xuseen aan ka dhaxgale waxaad ka dhawaajisay anakii oday ma laha meeshii
haddii aan fiirino ama maaragtay dhaqan ahaan Soomaali waxaan nahay maaragtay dad aad iyo aad ama loo arki jiray odayaasha in laga dambeeyo guurtada wixii ay goyso oo maaragtay xitaa doorashooyinkii aan soo dhaafnay waa tii meelo qaar lagu sheegaya negotiated democracy inkastoo maaragtay meelo badan uusan meel marin example ahaan kole ani waxaan Gaarisa haddii aan fiirino waa faafi waayo odayaasha qofkay wateen iyo qofka shacabka ay soo darteen laba qof oo kala duwan bay ahayn laakiin guud ahaan markaad fiirisid cidda meerooda markaan u imaano Njuriin Cheke bay leeyihiin Njuriin Chekegaas go'aankay gaaraan waxaad moodaa inta badan Peter Munya kuma gacan sayri karo soo agarta ma sax waay haddii aad fiirisid Luo Nyanza Luo Council of Elders ayaa jira Kikuyu Mount Kenya way leeyihiin oo aad moodaa odayaashaas yacni haddii maaragtay ee garka saa u jeedaan ay dhahaan cidda ma guureyso anakii oo nalagu ogaa odayaal inaan maaragtay waxayna dhan ay ka taliyaan xaggay wax iska qaban laahayn where is the problem dhibaatada anisaan u fahansanahay markaad hadda hogaamiye waan leenahay oo dad soo socdo waa la arkaa laakiin hogaanka markii laba loo qaybiyo mid waa waxaa lagu matalaa unite and serve unite midka kale waxaa lagu matalaa divide and rule kala qaybi adiga taagnaaw iyo isu keeno u adeeg markaad aragtid ummad isku toosan oo kala dambayso badanaa waxay ku dhaqdaan isu keeno u adeeg markaad sidaa samaysid dadka way kaa dambaynaan ilaa waxay og yihiin Cabdi Axmed meeshuu tago dantiisa keli kama hadlo muxuu ka hadlaa danta guud support heli Mount Kenya Meru Luo Nyanza waxyaalahaas yaa ka jira waa unite and serve waad aragtay 2017 electionkii markuu Raila uu dhaho meeshaan hala maro way maraayeen yaan la tegin Nyanza dhankeedii Safaricom xataa waa ka gooyay say ku dhacday because waxay ogyihiin dantooda waxay ku jirtaa ninkan inay adeecaan ninkanna wuxuu og yahay dantiisii as a leader waxay ku jirtaa dadkan inuu saaf gareeyo annaga waxaa naga maqan run ahaantii isu keenidii way naga maqan tahay badanaana waxaa arkay Soomaalida in maaragtay ay iskala qaybiyaan ilaa tuulada hoose tag adiga laba family one family oo aabihii iyo hooyadii iyo ilmihii different votes ay kala geynayaan say ku dhac because fidnadii yaa soo gashay fidnadii yaa soo gashay familyga meeshii la rabay aabaha inuu dhaho anaga meeshaasaan ku ridaynaa kuuraha ciddiidii kartana ma laha wiilkii wuxuu ku weydiinaa aabba adi ninkan aad leedahay aan dooranno maxaa ku haysataa ani shaqo la-aanaan ahay aniga keli ma aha my friends shaqo la-aan waay magaaladii tuuladii youthkii shaqo la-aan waay marka waay wuu kaa diidaa xuseen ninka siyaasiga laga soo doorto gobolka Soomaaliyeed waqooyi bari Kenya inkastoo ay Kenya dhan ay saa tahay markuu makhaayad fadhiyo uu koobkiisa shaaha cabayo dareenkiisu waxaa weeyaan kuurahan la sheegayo codkan la sheegayo anigu waan soo gatay lacag baa igaga baxday soo agarta maaha xuseenkii ii soo codeeyey shalay kamaalin 500 ayaan siiyey marka wax ayaan kala gadanay xaqna iguma laha aniguna xaqna kuma lihi soo agarta maaha waayo wax baan ka gatay soo agarta maaha willing seller and willing buyer ay arrintu tahay marka arrintu dhabta markii ay saa tahay maadaama hadartan maaragtay branchkan aad wadid ama laantan aad wadid maaragtay sidii shacabka loo baraarujin lahaa oo maaragtay ay u hoggaansan lahaayeen leadership qualities sound leadership quality maxay miyaad sidee maaragtay loo habayn karaa oo la isku soo toosin karaa saddex geeska ah ninka codka bixinayo ninka siyaasiga ah oo
shacabka iskaga dhigaayo inuu yahay nin wax hogaamin karo? very important question. waxaa dhacdaa campaignka waa raaca. waxaad arki tuulaad arki ninka odayga ah markii barsada la joogo wuxuu ka hadlaa magaaladan tuuladan biyo ma laha, jid ma laha, xoolihii waa biyo la-aan, waxyaalahaasuu ka hadlaa. markuu u imaado musharaxa wuxuu leeyahay horniyahow wiilkaygii shaqo la-aan ah waxaan rabaa inaad shaqo ii siisid, mise gabadhaydiyaa jaamici ah oo maaragtay shaqo inaad ii siisid. dadka beenaa loo sheegaa. waxaa leeyahay waa nii dhisaynaa jidkaas, wartaas waa nii qodaynaa, ceelkaas waa nii samaynaynaa. baad intana waxaa leeyahay ninka odayga hay soo dirsadeen oo la raba inuu u hadlo asagaa isoo hadlaa. dan gaar buu wataa. dan gaaruu wataa. shicibkina markay ay waxyarkoos sheegaan la gaaro waktigii votinka safkaa loogu qaybiyaa 500. meeshaas waxaad arkaysaa in danta guud ay ku luntee totally. qofaa lasoo dooranaa, magaaluu tagaa, wuxuu leeyahay waxaasaan samaynaa, wuu soo ballan qaada. dad iska masaakiin oo waxba war ka haynin alle biyaa noola samaynaa, magaaladan waa isbedeli. haddana dadkii lacagtii ay qaadanayaanoo ma ogo in ooba shakadaas ay soconayninoo la gadan hayo. ninkan musharaxa waxaa kaga bixi 20 milyan inuu MP noqdo. waa inuu soo ceshado. ninkii lacagtii aad ka qaadate, ninkii odayga aad dirsate, wiilkiisii shaqaa loo qoraa, adigii lacagaad qaadate, musharaxii lacagtiisii inuu soo celiyo waaye. programyaa loogu talagalay CDF national government programs ay jiraan oo constituency-ga loogu talagalay. asagiyaa contractkii qaadanaa. wuxuu ku leeyahay meesha lacagaa iga baxday, aad ma olan tahay. haye waxaa la rabaa isbedel inuu imaadaa la rabaa. sadan si oo lagu socon kara maba aha mogta. markaad qofka aad dhegaysanayso horta lacag ha ka qaadanin. don't take money. isbedel soo ma rabtid shilin ha ka qaadanin. la xisaabtan hogaamiyaha number 1 quality aad ku kala garanayso waa nin barnaamij kuu sheegaya. wuxuu ku leeyahay 5 sano aan MP-ga ahaanayo 200 oo arday ah iskuul waan ka bixinaa, magaaladan ceel aan u dhisaa, isbitaalkan waxaan samaynaa dayactiraan ku samaynaa. programkii kuu sheegaa. haddaad ku qanacdid waa ku qanacdid, haddaad ku qanacdid waxaa leedahay ku dar kan, add this one, programkan ku dar, kan ku dar. sideed ku samayni? waxaan samaynayaa dhahde noo sheeg habka aad ku samaynayso. number 1 quality waa in qof vision uu leeyahay, qof aragti aan lahayn. maalin hore mid musharaxaan la fariistay. waxaan iriniyo kuuraan rabaa dhahday, maxaa isbedel keeni? wuxuu i weydiiyey kuwa hadda ku jiraan maxay keeneen. that's a good question. yes. kuwa hadda ku jiraan maxay keeneen buu yidhi. maxaad u doonayaa iri adiga? meesha isbedel baa la rabaa. kuwaas haddaad nagu celisid adiga maxaad isbedel aad keeni? that's what I'm interested in. I could not give me any answer oo aan u arka in oo ay ka jawaabtay su-aasha. nidaamkaasay ku wada socdaan marka. very few oo farakotiris
yaa isbedel keenaya marka xuseen feri haddii aan qabiilka ka soo tagno nasiib xumana lagama tegi karo markii la xulaayo ama la isleeyahay hebel waan qaadnay maaragtay isagaan rajaynayna inuu muxushimo noo noqdo waa sida maaragtay kelmadaas loogu dhawaaqo laakiin qabiilka haddii waxoogaa aan meesha ka siibno maadaama arintan hadda maaragtay fikradan ama branchkan hadda aada wadid oo ku saabsan motivational education waa saynis kale marka shacabka siduu ku ogaan karaa ama maxaa lagu tilmaami karaa ninkan alelehe astaamaha wuxuu leeyahay qof hogaamiye noqon karo number 1 waan sheegay waa inuu yahay qof horta aragti leh si fiican oo aragtidaasna soo bandhigi karo qof hadli karo oo sheegi karo waxaan rabaa wadankan inaan ka dhigo wadan barwaaqo ah sidaad uga dhigaysaa sidaan 1 2 3 aan uga dhiga yaa ka faa'iida constituents badanaa jira youth jira women jira you know waxaa jira professionals jiraan elderly dad constituents dadkaas sidaad aad u balance garaynaya laga rabaa number 1 waa vision number 2 markay horta aragtidaada la arko qofkan Allah ilaahay aragtidiisa ma xumo value-ga la fiirina value-ga waxa waay qofka qiimuhu leeyahay qiimaha qofka uu leeyahay waa shilin labadiisa dhinac oo kale mid waa skills oo shaqadii ma ka soo bixi karaa ninkan markii meesha loo diro ma ka soo bixi karaa skillskaas ma leeyahay number 2 dhanka kale shilinka waxaa xigta ninkan nin aamin ama yahay nin rusheeg ma yahay because sifada nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi lagu garanayay intuusan nabi noqonin and truthfulness qof aamina oo runsheega buuba ahaabo marka waa mandatory lagama leexan karo ninkan waa hadal badan yahay haddii lagu dhaho waa laguma ammaanin waxaa lagu qariyay laguma ammaanin run ahaantii waa hadal badan yahay waxaa waaye inoo wuu iska hadlaa si fiican marka waa in labadaas calaamo lagu arkaa calaamo oo qarsoomi kartana ma aha midda saddexayso waa in qofka uu maaragtay uu yahay qof oo isu keeni karo dadka waa inaad isu keentaa dadka different waxay qabaan mentality different waa inaad aruuriye noqoto waa inaad dadka isu keentid mid baa dhaqsa xanaaqa mid baa dadka isu keen marka midda afraad waa in aad u damqatid not inaad glass house aad ku jirtid oo Nairobidan qabowgan iyo maaragtay raaxadan iska dadka way rafaadsan yihiin you have to feel what these people are feeling midda shanaad shanaan kuu sheegaa bis qof ilaahay ku xiran inaad tahay waa la garanaa taasna shantan qodob waxaan la garan karin ma laha maanta haddii la dhaho waxaan diiradda saaraynaa mudanaha ka imaaday constituency-gaas dadka in loo sheega maaha waxay leeyihin kan waa saas kan waa saas haddana waa lagu soo celinaa haddana kii beenaalaha ahaa kii khiyaanalaha ahaa kii wax mataraha ahaa kii lagooyada ahaa oo dadkaan taleefonka qabanayn waa still asagaa ku soo noqonaa waxaad isweydiini dadkan indha ma laha miya khaladka xaguu jiraa you know that's what khaladka xaguu jiraa khaladka dadkan shicibka ani dadka shicibkan saara dadka shicibka aan saara aqoon darraha u geyso mase corruption musuqmaasuq lacag la qaata iyo dadka oo la mislead gareeyay iyo waxyaalahaas ha noqoto qof kasta waxaa responsibility saaran inuu kala garto saxda iyo qaladka
shaqsigay ku soo noqonay adigii waad og tahay inay khalad tahay bad waad ku sii dhaqaaqi qofkan waad og tahay inuu waxba maaragtay uu keenaynin qofkan waad og tahay in oo khiyaanalow uu yahay beenaale uu yahay but still waxaad leedahay intaad wax qaadatid aad leedahay ninkan wax dhaamama haynayaan ummad markii oo jid khalad loo wado midkooda sharafta leh way qarisaa way qarisaa whether external forceska qariya mase ummadda uu ka dhashay qariyo it doesn't matter but haddaad weydiisid yaa ka soo bixi karaa xilkan waa laguu sheegaa but still haddana dadkaas ma raacayaan